واد مقاشان reer kulmiyo ku celcelinaya cadowgaanu ka badbaadinaa Soomaaliland cadowga sheegayaan ma taqaanaan war ninka aniga cadow ii yaqaana idinkana muxuu idin yaqaanaa la ilaaha illa allah taageerayaashan ka midaysan rajada isbedel doonka ayaa waxay maanta si rasmi ah u soo afmeereen ololahooda doorashooyinka isku sidkan ee ururada iyo madaxtooyada iyagoo maanta ballan qaaday inay codkooda siin doonaan madaxtooyada Somaliland xisbiga mucaaradka ee wadani waxana ay ballan qaadeen in ay ka dhabayn doonaan maalinta doorashada ee 13 November mas'uuliyiin iyo hoggaanka sare ee xisbiga mucaaradka ee wadani oo uu hogaaminayo musharaxa madaxweyne ku-xigeen Ambassador Maxamed Cali Aw Cabdi ayaa dadweynaha iyagu halkaasi kala dardaarmay reebarama gurmad ma tihiin reewdal gurmad ma tihiin saamiga gobolka awdal waa biyo kama dhicmaan Soomaha Muuse waxaan leenahay bedelu Muuse bedelu irkiina in soo saaray Soomaha damiirkeena Muuse guribna Soomaha ninkii baday iyo waridna Soomaha 13 November farteena ku arsanaa Soomaha 7 sano ayuu ninkaas kursiga fadhiyay wadada yare Boorama iyo Baki ayuu inoo quuri waayay ma ninkaasaad maanta mar labaad codkiisa siinaysiin kulmiye ma doonayo dawladnimo ma doonayo inuu idinka qayrkiin inaga reebo doonayaa soo sidaa maaha iyaan la inaga reebin qayrkeen wuu og yahay inaanu badinayn haddaba maanta waxaynu diyaar u nahay inaynu badbaadino Somaliland keenaa xoreysanaynaa midnimada dalkeena ilaalinaynaa wadajirkeena ilaalinaynaa soo kulmiye arbacada lama wixii ka dambeeya ha socdo ma nidha ha socdo kulmiye marka waxaan idin leeyahay xisbiga wadani iyo madaxweynaha mustaqbalka maxayn Cabdiraxmaan Ciro fartiinu hatta bato hayna dhaafo reebaran hayna dhaafo maanta codkeenna farteenaynu wax ku dhacsanaynaa shalay haddaan fartii Muuse eednay maanta eedi mayno ninkayna iibiyay macadowga mise waa sadiiqiina ninkayna iibiyay macadowgiina mise waa sadiiqiina ninkayna iibiyay macadowgiina mise waa sadiiqeena haddaba cadowgeena cod maan siinaa maalinta 13 November waxay noo ballana inaynu farteena ku ciilbaxno Soomaha maalinta cod bixinta inaan dhammaanteen ku yar iyo ku weyn aan aad u soo banaabaxno oo aan iska ridno ninkaan nacaybka gobolka awdal buuxiyay Booramo ma maqlaysaa ugaaskiina oo karaamaysan oo sharfan ayaanu soo galbinaynaa magaaladiisaanu keenaynaa si sharaf leh oo xurmad leh oo ugu noolaanaya talada dalkana qayb ku yeelanaya waxaan idinka doonayaa inaad sidii Kamala Harris loo amba bixiyay saacadood gudahood inaad kulmiyo amba bixisaan waxaan doonaynaa 12 duhurnimo in kursiga lagu kala hagaago maalinta insha Allah taala arbacada kiinaanu idinka rabnaa haddaad isbedel rabtaan dabca oo nolosha awdal saameeya Muuse biixi wuu yimid halkan muxuu idin ballan qaaday waryaan la seexanin warkaarka alla ilaashado Somaliland waxay heshay jaanis aad u fiican 4 maalmood ka bacdi waxa loo codaynayaa isbedel doonka iyo ragaadiyaha kulmiye ayaa loo kala codaynayaa ayaad u codaynasaan kulmiyahayna dhaafo Axmed Diriye Ciltire wararka warbaahinta SBC Boorama